been baa lagu soo xarageliyaa runtaa lagu dhaqaa sax laakiin dee anaga inta badan dabeecadaha askarga taas mafahamtay yaa loo qaban marka xaqiiqada jirto waxa waaye qofka markaad aragti yani aragtidiisa koobaad waaw shidanta aftaan wallahi السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ولكن شافعي كرت sidoo kale YouTube channel ka daawanayso waa Shaafici Kurti maanta iyo muuqaal cusub kala ilaad sida nooga barateen bariyaha dambe waxaan wadi jiray barnaamijkii dhiirigelintaha ee taxanaha mar walba ka bixi jiray YouTube channel kayga bariyaha dambe maana sameyn oo arrin jiray cilada jiro dartood oo iga dhaxgalay maana soo sameyn balse maanta ayaan dib u soo laabanay oo aan dib u soo bilaabay barnaamijkii iraaya taxanaha mar walba wada taqaaneen طبعا حفلها هذا بدنا وجرو يقول صح على السوشيال ميديا هيك ان هداد u baahan tahay sidoo kale barnaamijkaas inaad xiiseynayso u baahan tahay waxaad soo follow gareynaysaa aan Instagram-ka xaga ayaan inta badan u badanahay oo aan mar walba ku jira xagaas igu soo dir fariimahaaga iyo waliba jawaabaha adiga mar walba hayso sidoo kale video-ga marka daawato fariimahaaga la sii wadaag igala soo waad igu soo qori kartaa xagga YouTube-ka sidoo kale maanta iyo muuqaal cusub barnaamijka maanta wuxuu u socdaa sidatan barnaamijkeeni yaraa ugu wada taqaanin طبعا anaga hadan nahay dad qaasatan macnaha maanta hadan ka halo ragga waxaad arkaysaa qalanjo ama gabar qurux badan oo halkaas oo kale taagan aad fiirinaysaa saasa fiirinaysaa waxa leedahay yani eriga koobad waxa koobad oo markii koobad ba nagu soo dhacayo ama niyadeena soo galahayo waxa waaye in qalanjadan ay shidanta camalno fahad hataa hadan rag xaasas leh iyo kuwa iska bula isku wada darbeerto ku wada jiraan dhanka kale gabdhaha ayaan ka reebin sidoo kale waxay arkayaan hal wiil oo anoo kale toode xoogaa iska soo labistay laakiin xaaladda guriga laga iyo xaaladda noloshaydaba ana warka hayn iyo xaaladda jeebkayga waa kuba darba laakiin waxa laga yaabaa laba shay oo bilaay ka dhacdo tabala inaan ku soo xirto ka bacdina magaalada ku soo maro kadib markaas maxaad iga aaminaysaa inaad ahay qof bilaay ka dhacdo telefonkayga laga yaabaa ana ama sidoo kale anaga ahaan ragga waxa laga yaabaa kaba soo qaad iyadana waxa laga yaabaa maanta gabar shidan ama TikTok ama Instagram ama caadi live loo arko hadaan aragno waxa isla markii sameynayna qoftaas inaan raadino meesha ay ku sugan tahay meesha ay degan tahay qaabkeeda inaan isla markiiba aan degdeg yani aan energy ku sameyno am interest badan aan gelino sidii aan qoftaas yani ku soo qabanahay ku soo xaragelin lahayn haday tahay been ama run ba intaba laakiin laga yaabo nolosha markaas qofkaas aan ula tagayno inay ka duwan tahay nolosha xaqiiqada oo ay tahay in qofkaas markaas ku soo xilo garino nolol been oo been ah oo aan ahayn mid xaqiiqada waayo inta badan waxa sida maamaha Soomaalida horeba loo dhihi jiray waxa waa dumar yani been baa lagu soo xarageliyaa runtaa lagu dhaqaa sax laakiin anaga inta badan dabeecadaha askarga taas mafahamtay yaa loo qaban marka xaqiiqada jirto waxa waaye qofka markaad aragti yani aragtidiisa koobaad waaw shidanta aftaan wallahi caadi ma tikimaad asdahana laakiin waxa waajib ah aniga shakhsiyatan waxaan aaminsanahay shakhsiyada qofku aniga markaan iska hadlo shakhsiyada qofku iman qanciso laakiin waxa qanciso hab dhaqanka qofka ay tahay qofka u wanaajinayo soo ku wanaajinayo ku soo dhaweynaa marka hore akhlaaqdiisa edabtiisa yani qaabku uu dhaqmahayo dabeecadiisa waa in horta qofka fahantaa marka hore kaba soo qaad baad ka heshay laakiin isku day meesha aad degdeg u sameey lahayd yani aniga dhaftigeena hadaan ragnahay yani xogaa sharaf dhac ay ku noqonaysaa inaad meelahaas kale ku degdegto adoo hubsan kaba soo qaad hubsan la'aan tagtay laga yaabo in qofteeda qof la qabato marwa ay ka war adigana energy badan interest badan soo marto so finish ivansin wax ma haysi marka taas waxa ka horeyso inaad horta shakhsigan adiga aad ogaato ina bal wuxuu yahay halku ku nool yahay waxa uu yani qof la qaba qof madax banaana يعني واحد شرح حتى دمر بدنه أي كل قمين يعني دمر دونان واحد شرح معناها قف يعني دون شذا حكوا هذا سوري يعني قف دونان وهذا ندى هذا نفتقى أتكلم كرت أنت بدن السهر لا شيء بقى يعني رك قرحان يدمر كقرحان بقى أصلاً أنا يرمي لكن دمر كقرحان وحال هاي
qof markasta waa lagula leeyahay marka laga yaabaa marwo qurxoon oo bilaa ka dhacdo inaad inta ka hesho laakiin ay tahay qof u doonan oo waa hortaba hilibkeediba iyo waxeediba laga hadlo yaa ciyaalka xaafadda ay waa horeetay ka duceeyeen yaa inaa ku soo degdegtay marka that's why ay anigu ku leeyahay in marka horeetay hubsiino halbaa la siisaa waa ina horta degdegsimada ay si isla markiiba kugu dhalan yani adoo xakameynaya dareenkaaga waa inay la socotaa dareenkaaga iyo damiirkaagu waa inay isla socdaan waayo yani degdegsimada badan waxay dilaysaa dareenkaaga fahamtay marka mar walba waxa lagaaga baahan yahay inaad degdegin laakiin aad ogaati the first day qofkaan aad aragto inaad isla markiiba aad follow gareyso maahan everything social media dhacay ka hela qofkan tu jooga ya ala fa ma dasnaasin just waa inaad ogaataa horta ku macnaha nolosha xaqiiqada qofkan ku nool yahay iyo nolosha adiga aad ku noolshahay miskiin karaan macnaha markaas ka bacdi isku qiimeey aad laftigaaga yani marka aad inkastoo yani jacaylka qofka lagu sheegayo uu yahay dareemo macnaha qofka markaas ku dhasho yani oo ay si soo gali karin meesha in ay nolosha qofka ku nool yahay ama heerka u taagan yahay iyo ay iskeeni karin adiga jacaylka aad u qabto laakiin jacaylku mar walba ogow yani waa dareen meeshu rabo gala qof ka weyn oo gala qof ka yarna oo gala waxa laga yaabaa adoo yar ina qof ka weyn aad u qaadi adoo weyn waxa laga yaabaa qof yar ina aad u qaadi soo dareenka jacaylku yani ma kula tashanaa mar walba waa sida ay jacaylku iyo calafku isku meel u galeen sidaas oo kale ay labadana isku meel u galeen marka waa inaad ka fikirtaa tanna waxa ay tahay iyo waxyaabaha ay ku filantaa adoo yani laftarkaaga niyad jabin laakiin aad mar walba interest ahaan u siisay inaad labadaba aad isku keeni kartid ya fahmt marka maanta casharkeenu saas uu kooban yahay aad mahadsantihiin hadda ka hesho muuqaalkan ama yani mar walba barnaamijyadan oo kale in aan soo badiyo hadii ay fikradaadu tahay oo aad ka heshay waxaan ka codsanayaa inaad commenteena ugu soo qortay sidoo kale hadii YouTube ku caajistay yani video aan kugu sii dheeraaday aad baan kaaga reelgelinayaa balse waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saarto YouTube channelka kuna soo birto Allahumma salli ala Muhammad welcome